Asalaamu waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa aniga Cabdirasaaq Axmed, halkan naga daawaneysana waa Cabdirasaaq Axmed Official. Kusoo dhawaada mawduuceena maanta. Mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida shaashada aad ka aragteenba sida loo sameeyo account payable ama account online waxa lagu iibsado. Qaab online markii aad rabtid inaad wax ku iibsatid waxaad u baahan tahay account payable inaad samaysatid. Tusaale ahaan waxaad rabtaa dhar inaad online ku iibsato rabtaa ama waxyaalo la halmaala ama waxyaalo kale ay rabtaa inaad ka gadatid qaab online ah. Waxaad u baahan tahay in aad leedahay account payable. Marka waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo meeshan aan idinla wadaago qaabka loo sameysto account payable. Account payable-ka markaad rabtid inaad sameysid marka koowaad waxaad tegaysaa Chrome-ka markaad tagtid waxaad qori doontaa account payable. Account payable login ayaad leedahay. Account payable login markaad tirahdid haddaad rabtid meeshan waa iska qaadi kartaa oo desktop site-ka waa payable account. It is free to sign up. Personal account iyo business account ayaa noo soo kala baxayo. Anaga personal account ayaan rabnaa. Personal account wuxuu yiri for personal who want to pay online. Anaga marka personal account ayaan ku dhufaneynaa marka aan rabno payable in aan sameysano. Wuxuu ku dhahay marka payable account ka rabtid inaad samaysatid waxaad buuxinaysaa email address-kaaga, number-kaaga, magacaaga koowaad, magacaaga labaad, magacaaga saddexaad, password adag iyo password-kii oo mar walba dambe aad ku celinaysid. Meeshan waxaa saaran calankaas waan ka qaadaynaa. Calankaas wuxuu turjumayaa wadanka. Waxaad saaranaysaa wadanka aad ku nooshahay. Tusaale ahaan aniga Soomaaliya ayaan ku noolahay. Soomaaliya ayaan saaranayaa. Sababtoo ah lambarka aad geli doonto hadhowtu wuxuu noqonayaa lambar Soomaali ah. Meeshan Soomaaliya calankeeda ii fuulay. Lambar Soomaali ah ayaan geli doonaa. Aniga waxaan gelinayaa Gmail-kayga. Payable account markaad sameysanaysid Gmail muhiim waaye. Gmail app password-kiisa iyo wixiisa dhan aad taqaanid gasho. Si hadhowtii haddii payable account-kaaga aad lacag kala bixi doontid ama aad lacag u gashan doontid saadan u iloobin password-kaaga. Haddii aadan email aadan lahayn waxaad ku qasbanaan doontaa inaad Gmail soo sameysato ama email midba aad ka isticmaasho. Aniga waxaan isticmaalayaa Gmail kale. Gmail kale ayaan isticmaalayaa. Gmail ayaa tagayaa. Gmail kale ayaa isticmaali doonaa. Oo imaanaya Gmail-ka aad gashanayo. Gmail-ka qofka uu ku qoran yahay ama qofkii account-ka loo sameynayo Gmail-kiisa ayay gelinaysaa. Tusaale ahaan Gmail-kan oo kale ayaan rabnaa inaan ku sameysto account. Gmail-kan ayaan rabaa inaan ku sameysto. Markaad Gmail-kan ku samaystay number-kaan aan gelinayaa waa number-ka koodhka kugu soo dhici doono. Kadib magacaaga oo kale gashanaysaa. Magacaaga markaad gashatid password-ka u imaanaysaa. Password-ka muhiim waaye. Password-ka aad geli doontid wuxuu noqon doonaa password xarfo iyo number isugu jiro. Password-ka aad geli doontid waa inuu noqdaa password xarfo waaweyn, xarfo yaryar, number isugu jiro. Si kale haddii kale ma aqbalayo shirkadda. Abdi aan ka dhigayaa oo kale oo capital ay ku jirto 2020. Haddana asigaa ku celinayaa capital Abdi 2020. Waa kaasaa password-ka xoogaa waa adag yahay number iyo xarfo isugu jira, xarfo capital iyo xarfo yaryar. Kadib confirm ayaan leeyahay. Next ayaan leeyahay. Wuxuu soo qori doonaa. Wuxuu yiri lambarkan waxaan kugu soo diray koodhkaas lambarka ee kuu soo diray shirkadda ay kuu soo dirtay ayaa geli doontaa. Koodhka hadda lambarkan ayuu ku jiraa.
waa kana koodhka oo noo soo dhacay waxaa waaye 3325 3325 koodhka waan geliyey. Wuxuu soo qoray maadaama wadankii aan mar hore soo saxday oo Soomaaliya aan kasoo dhigtay, wuxuu igu soo qoray in Soomaaliya nationality-gayga wuxuu dhahay address line 1 addresskaada koowaad u baahan yahay, addresskaada labaad u baahan yahay, caasimadaada, postal code-ka, xilliga aad dhalatay, waxaas dhan ayuu u baahan yahay. Information buuxa ayaad gelinaysaa markaad rabtid in aad online wax ku iibsatid ama shirkadda account payable-ka account aad ka furatid si aad online wax ugu iibsatid. Okay, hadda address line 1 aniga waxaan gelinayaa, waxaan deganahay degmada Hodan oo kale, Hodan District, KBB Street ayaan kala gelinayaa. City town-keeda waa Mogadishu, Banaadir region waaye. Postal code-ka oo kale maadaama Muqdisho aysan postal code lahayn, waxaa iska gelinaysaa number. Haddaa ka tagtid ma diidayo, laakiin in aad meesha banaanaato ayuu diidaa, laakiin haddii number qaldan xataa aad gelisid wax ma diidaa, sababtoo ah ayagaba waa og yihiin ama waa in Soomaaliya aan laga isticmaalin maxaa la yiraahdaa postal code way la socdaan. Marka waxaad gelin doontaa goorta aad dhalatay, bisha, sanadka. Tusaale ahaan 15 bisha 9aad 1990 oo kale gashanaysaa. Waxaad leedahay wuxuu ku dhahay still logged for faster checkout. Wuxuu ku dhahay inaa mar walbo login oo ku ahaado oo macnaha Gmail-ka uu kugu save gareysma password-kaaga. Tiga saaraysa agree and create ayaa leedahay. Agree and create markaad tirahdid wuxuu ku jira you are in what's next, yacni waad samaysatay oo waad create gareysatay. Marka aad create gareysatay hadda wuxuu ku leeyahay marka step kale ku xiga ayaa jiro. Wuxuu ku leeyahay send money and shop with easy with your new account. Account-kaaga cusub lacag wax ku iibso waxna kala soo bax, lacag ku dirso. Marka inta wuxuu noogu soo qoray shop with PayPal wax ku iibso, lacag qof waa ugu diri kartaa, saaxiibkaaga wuu kugu soo diri karaa account payable-ka. Tusaale ahaan shop with PayPal aan leeyahay waxbaan ku iibsanayaa, tusaale ahaan waxbaan ku iibsanayaa. Okay, markii aan rabo wax inaan ku iibsado waa kaasa account-kaada waan samaystay. Tusaale ahaan account-kii markii aan samaystay wuxuu ku yiri account is ready to use. waa samaysatay, wax ku iibsan kartaa, sidoo kalena qof wax ugu diri kartaa. Marka hadda account-kii payable-ka uu ku samaysan yahay, maadaama account payable-ka uu ku samaysan yahay waa kana hay Cabdirasaaq magacii aad ku qortay iyo xogtiisa ku soo baxday. Si marka aad wax ugu iibsato waa in aad kaarka bangigaaga aad linki gareysaa ama aad ku save gareysaa kaarka bangigaaga si hadhowti shirkadda automatically ee lacag kaga baxdo ama qof markuu lacag kuu soo dirayo oo automatically kuugu soo diro. Tusaale ahaan waxaad rabtaa in aad wax ku iibsato kale, markaad rabtid in aad wax ku iibsato shirkadda automatically ayaaba lacagta markii wax aad dalbatid. Tusaale ahaan shaarkan $20 ayaa la gadayaa. Marka lacagta haddii shaarkan $20 oo la gadayo oo ku qanciyo aad pay dhahdid buy aad dhahdid, lacagta automatically account-ka waxaa kaaga baxayso $7 ama wixii shaarka la gadayay ayaa kaaga baxayso automatically. Marka kaarkaaga haddaad ku xiratid hadhowti lacagta haddii lagu soo dirayna toos kuugu soo dhacaysa, haddaad kala bixaysidna toos account-kaaga lacagta ay kala baxayaan shirkadda account payable-ka. Tusaale ahaan inta waxaad gelinaysaa Mastercard-ka ama Visa waxaa isticmaali doontid. Hadda dayaad 51 waan dhahayaa. 51 markaan geliyo waxaa ii soo bixi doono Mastercard-ka dhan waxay ka bilowdaan numberka 51. Aniga waxaan isticmaalaa Mastercard. Inta waxaan gelin doonaa Mastercard-ka dhinaca wajiga hore numberka ku qoran oo tirada badan ilaa 10 number meel ay soo gaaraan. Marka Mastercard-ka dhahdid tusaale ahaan 51 oo Mastercard-ka ka bixina oo ka bilaaban doono hadhowti account-ka type waxaa ku soo qormi doono Mastercard. Kadib waxaad sameyn doontaa waxaad gelin doontaa kaarkaaga xilliga oo dhacayo. Kaarkaaga expiration date-ka waxaa waaye 4 xabaa kugu qoran. Tusaale ahaan waxaad leedahay bisha 3aad 2025 iga dhacaa oo kale leedahay. Kadib meesha waxaa kugu qoran
kadib waxaa kugu qoran sida meeshan aad ka arkayso waxaa jirto mastercard-kaada 3 nambar oo leeyahay oo password u ah. 3daas nambar waxaa loogu talagalay markii aad online-ka wax ku iibsanayso in aad 3daada nambar aad geliso. Tusaale ahaan 123 in 3daada nambar ku yihiin oo kale 123 3da nambar markay ku yihiin expiration date-kaad aad gelisid, mastercard-kaad aad gelisid iyo account type-ka card type-ka asiga ayaa kusoo saari doona. Kadib information-ka aad soo gelisay address-kaaga iyo wixii inta kusoo saara. Kadib waxaa leedahay link card ayaa ku dhufan doontaa. Markaa link card ku dhufatid kadib wax waa iibsan kartaa waxna waa account-kaaga oo lagugu soo diri doonaa oo hadda account payable waad samaysatay. Videogana intaas ayuu egyahay. Waxaan rajeynayaa inaad fahamteen insha Allah. Intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa haddii aad videogan ka daawatay sidoo kale waa ku mahadsantahay daawashadaada. Haddii aad videogan ka heshay fadlan like saar, ha ka iloobin subscribe-ta nagu caawi. Waa mahadsantahay. Intaan videogan ka xigo aan ku kulmi doono. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum.